السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حبين وناكسين قلب وناكسين دمانتين به إن maalmahan ba waxaynu ka hadlaynay runtii barnaamij yaro gaaban oo degdeg ah noo bilownay oo wacyigelintii ee bulshada ku saabsanaa runtii bulshadeenana aad moodo inuu si aada oo si gaara inoo saameeyey marka caawa bal waxaynu eegi doonaa waxaa ila jooga sheekh faysal cabdiraxmaan loo yaqaano faysal weylac sheekh faysal waxaan ka wareysan doonaa caawa bal inuu wax inaga aan weydiin doonaa inuu wax inooga sheego oo inuu tusaaleeyo sida bal diintu dhinaca waxa ay ka qabto run ahaantii markay noqoto ilaalinta nafta badbaadinta mataqaanaa bulshada daryeelka caafimaadka runtii waxaad moodaa marka dadkeenu iyagoo dhaqankeena xitaa waxaa ku jira taxadar badan oo tusaale ahaan waxaana la yidhahdaa xagla toosan xoolo kuma yimaadaan taasoo macnaheedu tahay in dadaal la sameeyo runtii dadkeena markaad eegto markaynu shaqo tegayno ilaahayna waynu wakaysanaa dadaalnaynu ku darnaa markaynu wadada ka tallaabayno innagoo mar walba tasbiixsanayno ilaahay wakiilanayna haddana dariiq iskama ilaah baan wakaysanayna taxadar baynu samaynaa baynu egnaa markaasaynu ka tallawnaa laakiin imika waxaad moodaa dadkeennii iyagoo dadaalaya marka la yidhahdo war xanuunkii coronaviruskii taladii caafimaadka qaado awaamirtii dowladda fuliya in ay koranayaan ilaahay baan wakiishay marka bal waxaan doonayaa faysal inaan bal ka weydiiyo wax xigmadda ka dambaysa wakiilashada ilaahay iyo dadaalka xiriirka ka dhexeeya marka bal intaanan u gelin horta waxaan samayn doonaa inaan in yar ka idhaahdo maanta UK COVID-19 runtii waxaa laga helay 45,530 qof tirada marka lagu daro waxay noqonaysaa hoos buu u yara dhacay runtii marka la eego 7 cisho marka waxay noqonaysaa ilaa 390,000 oo qof oo dhow marka la eego maanta waxaa u dhimatay 1,240 qof ayaa xanuunka u dhimatay 7 cisho ugu dambeeyeyna waxa weeyaan 7,000 qof oo dhow ayaa u dhintay marka haddaynu eegno Bristol oo aynu inagu diganahay runtii maanta waxa u dhintay waxa maanta laga helay 346 qof 7 cisho ugu dambeeyayna waa ilaa 2,500 oo dhow baa laga helay Bristol 25kii cisho ugu dambeeyay waxa ku dhintay waxa 7 cisho ugu dambeeyay waxa u dhintay baan jeedaa 25 qof maanta 2 qof baa u dhintay ilaa inta la ogyahay runtii marka la eego haddaynu reer Bristol nahay dhowr habeen ka horna waan sheegnay innaga aad buu inoo saameeyey hadday noqoto xaggii dadka uu ku dhacayo hadday noqoto xaggii dhakhaatiirta dadka yaalla dadka guryaha jiifa iyo wax walba marka waxa weeyaan 7 cisho ugu dambeeyey 8% dadka dhimanayay Soomaali bay ahaayeen haddaynu eegno khamiistii iyo jimcihii 2 qof baa inaga kala dhintay taas waxay noqonaysaa 2 cisho kaliya dadkii dhintay inay 25% Soomaalidu ahaayeen Soomaalida oo 2% ka magaalada waa arrin runtii waxa la iska weydiinayo aadna inoo saameynaysa marka bal waxaan doonayaa habeenada dhaweed aad baan u canaanay ragga waxa muuqda runtii inta uu ku dhacayo cudurka badankoodu waa rag bay u badan yihiin inta uu ku dhacayo dhimashada rag baa u badan wacyigelin badan baynu ka samaynay runtii oo aynu canaan badan aanu iska bilaabno weliba anigaygana iska bilaabay maxaa inaga lainoo soo eegaya maxaynu hoggaanka u qaadan weynay laakiin waxaa soo baxaysa iyaduna oo isa soo taraysa in dumarkeenina uu ku dhacayo dumarkeena runtii ilaahay hadaayo waana lagu ammaanaa dariiq iyagoo taagan laguma arko iyagoo meelaha ku sheekaysanay lama arko weliba sidii awaamiirta ahayd ee la faray ayay u socdaan haddana waxaad moodaa maalmahan inuu isa soo tarayo xaggoodii runtii oo arrinaan doonaya caawa bal ragga iyo dumarkaba dhammaan bulshada dhan inuu sheekh faysal inaga wacdiyo waa maxay raggii uu kusii kordhay oo badankoodii iyagoo u badnaa maantana dumarkiiba runtii kusoo badanayaan dumarka runtii ma guryahay isugu tagaan ma markuu tacsi dhacdo ayay gurigiisa ka bixiyaan hagbadan la kala guro qof baa war hagbadan ay kala qaataan malaha bahalku soo raacaya bahalkani mid joogsanaya maaha
marka bal waxaan doonayaa Sheekh Faisal inaan caawa weydiiyo su'aasha ugu horeysa oo ah Sheekh Faisal horta soo dhawow aad baan kaaga mahad celinayaa inaad nagala qayb qaadanayso Faisal oo dad muslimiin nahay alxamdulillah iimaankeena aynu ku dadaalno mar walba inaynu adkayno xanuunkiina aad buu inoo saameeyey bal horta caawa dhowr su'aalood baan ku weydiin doonaa su'aasha ugu horreyn doonaya waxaa weeyaan war diinteenna quraanka iyo sunnuhu maxay ka yidhaahdeen ama ku macneeyeen wakiilashada ilaahay waa maxayna xigmadda ka dambaysa wakiilashada ilaahay sababtaan su'aasha ku weydiinay waxa weeyaan inagu Faisalow dadaalayna oo le shaqo tagayna oo le xagla toosan xoolo kuma yimaado ilaahayna wakiilanayna dariiqa iskama galno runtii markaanu ka talaabayno inagoo labada dhinac iska eegayno haddana dadaalayno tasbiixsanayno inuu galnaa laakiin markay xanuunkan timid waxaan war ilaahay baa qadaray ilaahay baan wakiilanayna Faisal bal horta intaanan su'aalaha dhinaca caafimaadka iyo waxa ay diintu ka tiri ku weydiin waa maxay wakiilashada ilaahay macnaheedu bidiiniyan xigmadda ka dambaysana maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد تذكر دمان ماشي كجري المسلمين تها والد السلام يا سلامة إسلام كيا ردك السلام يا سلامة إسلام كوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركب كوفاد وأنكم هالعلي يا أستاذ عبد العمر شقة مهم كأه وليه مهم وحوي أهم كأه عربي وحجر على هذا مهم يا أهم مهم كوشيء مهم كأه أهم كان وشيء مهم كشيء كسي مهم زون مركب عبد العمر يو رجل إسقاط قابي كوميونيتي وعدنا يا وانينا يا وقت صالينا يا شقة أتقوتين أما هذا سنرت آديات بدو ما سنتيهين وانا إذن سلام يا خيرنا الله إذن كسيو شخفي عن بعض ودان سي وضا هورو سي وضا تذكر أنه كسو إنجيج جراي أو مقارنسا كوميونيتي أن دمر يرق يرق كسو إنجيج جراي أو مقارنسا شقال هالكالغا سي وضا إنت مركا نقودو سؤال هذا توقل كنت أنا أقودو محار روادتك إن هل يرحسوسيو وضاك مسلم كان مركا يسوي مادان حتى يجارالان لغرب إنه مقارنسا حسوسيان ومهم ويه badan baa kulli haddana fiirsanaya ama dhageysanaya waxaan rabaa dadka inaan xusuusiyo inay alla ka cabsadaan oo alla ka cabsigu waa shayga ugu muhiimsan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa quraanka wuxuu ku leeyahay ayuha alladhiina aamanuu ittaqullaha xaqqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun marka waxa weeyaan ilaahay markuu yidhaahay yaa ayuha alladhiina aamanuu يا أيها المسلمون مركو إلهي إلى وكالة ديفرنسيون يا أيها الذين آمنوا مركو إلهي إلى ذو شرف عزة كرامة يا كجرتوا ذاك مسلمين تو لقى كرو قادوا مركو حاول إلهي وحول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وردك إلهي النبي الرمي الله كعبصدا سنب أنا وقع عبصدا حناد لمننا إذنكم أهين إذنكم مؤمنين من وحكا حناد لمننا marka cabsida ilaahay waxa weeyaan intaad awoodo inaad ka cabsato weeye oo waxa weeyaan Allah wuxuu ku amray inaad ka cabsato laakiin intii tabartaada aw ilaahay wuxuu yidhi fattaqullaha masadactum intii aad awoodaan Allah ka cabsado waxa kaloo ilaahay ayad quraan uu ku leeyahay waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ruuxi ilaahay ka cabsada Allah wuxuu u sameeyaa markuu mugdi iyo dhibaato iyo rafaad markay ku timaadaba meel uu ka baxo ayuu ilaahay u sameeyaa haddana dhibaatada waan ku jirnaa oo dhibaatada haddana alla ka cabsano alla ka cabsiga sii badino ilaahay meel fudud oon ka baxan ayuu noo samayn doonaa alla wuxuu ku gabagabay wayarzuqu min xaytu laa yaxtasib alla ruuxaasi wuxuu ku irsaaqayaa meel uusan magaranaysaa malaysanayninba meel bay jug wax kaaga soo dhahayaan marka walaalayaal cabsida ilaahay hortaan ku dadaalno waa ta ugu muhiimsan ee adduun iyo aakhiraba lagu liibaano ruux walba ilaahay u laabo muraajaca samee maxaa khaldamay maxaa ka khaldamay maxaa ku saxsamay ruux kasta dumar iyo ragba labadooba way u siman yihiin marka ruux hadduu arrinta muraajacada sameeyo dhammaanteen aan wada samayno heeraha aan wada samayno community aan wada samayno ilaahay wuxuu noo faydayaa meel makhraja
ma garanaysaay oon cudurkan iyo dhibaatadan iyo halaagan haystaan oga baxno haddaan u laabto ustaad cabdi su-aashaadii waxa weeyaan hor dadka waxaan rabaa inaan u sheego waxa la yidhaha tawakulku waxa weeye waa wax muhiim diinta islaamka oo ruuxa inuu alla tala saarto oo alla ku xidhnaado alla uu u dhiibto taladiisa waa muhiim wey dadka waxaa la amray inay alla tala saartaan oo alla wuxuu yidhi watawakkal cala alxayi alladii laa yamuut ruux walba waxaa la amrayaa inuu tala saarto allaha aanan dhimanin wey suuratu furqaan aayaddii ku jirta wey marka dadka inay alla tala saartaan waxa weeyaan waana la amray wey waxa weye raashinka gacanta kuugu jira iyo midka afka kuugu jira waxaa kaaga dhow inaad cunto ood laqdo raashinka alla gacantiisa ku jira wey oon afkana kuugu jirin gacantana kuugu jiran wey balofirs raashinka afka kuugu jira ama gacanta kuugu jira inaad laqdo waxaa ka dhow raashinka alla uu gacantiisa ku hayo wey oo alla agtiisa yaalla wey marka ruuxa inuu saa alla u tala saarta wey waxaa laga yaabaa raashinka afka kuugu jira intaad soo tufto inuu alla mid kaloo fiican ku siiyo oo kaaga fiicnaado oo aragta intaad wax afka geliso aad cun lahayd buu kaa soo dhacaa wey waxa weye ilaahay baan kuu qorin wey marka ruuxa mu'minka waxaa la rabaa inuu ilaahay horta saa u tala saarta ayaa la rabaa oo saa taladiisa ay ugu xidhan tahay wey ilaahay wuxuu leeyahay cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun dadka mu'miniinta allaha tala saartaano oo taladaada meeshaad ka bilaabato iyo meeshaad ku dhammaato iyo wax subxi markuu waaga baryo guriga aad ka baxayso maxaa la yihahdaa bismillaah cala allaahi tawakkaltu guriga aad ka baxayso waxaa la tirahdaa ilaahay magaciisaan kusoo baxayaa alla ayaan tala saartay wey waa gurigaada markaad ka baxdo wey shaqadaadi markaad tagto alla tala saarto meel markaad joogto inaad alla tala saarto wey tala saarashada midda ugu cajiibsan intaan ugu arkay waxay ahayd xadiidkii cumar bin alkhataab sayidina cumar waad garanaysaan hadan dee caawa cumar aan dhahno isagaaba laga baxayninba laakiin cumar ayaa wuxuu leeyahay radiallahu canhu xadiis uu nabiga ka waranaya wuxuu leeyahay suubanaha sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay hadda alla u tala saaran lahaydeen si dhab ah ilaahay wuu idin arsuqi lahaa siduu u irsaaqo shimbirta waa arteen habeenkii geed bay saarantahay qiiq shimbiraha geed bay fuulaan qaar baa dhulka dee magaranaysa iyo webiyada iyo meelaha dooxooyinka iska gala laakiin badankood waxay fuulaan geedahay fuulaan subaxii markuu waaga baryo way kallihii iyadoo gaajaysan taqduu khimaasan wa taruuxu bidaanan habeenkiina waxay soo iyadoo jiqoo caloosh u buuxdo iyo soo laaban marka allah haddaa saa u tala saaran lahaydeen sida shimbirtaas ay magaranaysaa alla u tala saaratay alla wuu idin arsuqi lahaa sida magaranaysaa uu shimbirkaa magaranaysaa alla u arsaaqi marka ruuxa mu'minka waxaa la rabaa si isku soo duduubo inuu alla tala saarto alla ku xidhnaado waxa dhacaya waxa hadda kugu dhici doona wax berri kugu dhici doona saacad subax kugu dhici doona kama warrantid laakiinse waxa weeyaan waa inaad alla talaada u dhiibato wixii kugu dhacaana aad ku samirto haddii wax nafci fiican heshana aad ilaahay ku maadiso haddii wax xun kugu dhacaanna aad magaranaysaa ku sabirta wey marka tala saarashadu dadka mu'miniinta waxay u tahay muhiim aad iyo aad ayay u tahay laakiin macnaheedu ma aha soomaalidu waxay dhihi jireen ruuxa waxaa la rabaa adoo ilaahay tala saaranaya waxaa jira waxa la yidhaha sabab waxa lahaa jira adoo ilaahay tala saaranaya inaad is ilaaliso inaad shaqaysato inaad magaranaysaa aad wax walba samaysato sababihii adigaa lagaa rabaa wey wixii caafimaadkaada dhib u keenaya wixii dadka dhib u keenaya waxa weeyaan waa inaad iska ilaalisa wey hadda for example dad tiraada inuu ilaahay baan tala saaranaya islaanna ma guursanayo maxaas laakiin waxaan u baahanahay inaan 2-3 wiil ama iyo 3 gabdhood aan 6 carruur helo dee ma soconayso wey sababta inaad la timaado wey waa inaad shaqaysato wey garanaysaa oo dee aad shaqo aaddo ood ka lahdo ood soo laabato oo magaranaysaa wey markaas ayaa magaranaysaa aad u helaysaa wey marka tawakulkii adoo tala saaranaya ilaahay sababtiina waa inaad la timaado wey hadda ka hor yaa niman culamaa waxay u yimaadeen reer baadiya kaasa waxaa lagu yidhi sheekhow geeli iyo waxbaa naga maqane bal ilaahay noo barya sheekhu wuxuu yidhi niyow geelinana soo xaraysta ilaahayna tala saarta allana waa idiin baryaynaa labadabaa laysku daro wey marka tala saarashada iyo sababaha magaranaysa ruuxu inuu is ilaaliyo ruuxu inuu shaqaysto ruuxu inuu magaranaysa dee sababtii la yimaado isma diidayaan wey bal ee islaamku wuuba dhiirigeliyey sababaha hadda for example innaga waxaa weye cudur waxaan haysta coronavirus oo dhibaato weyn nagu haya cudurka koronaha dhibaatada weyn nagu haya
for example dad baa waxay ku dhahayaan sida hadda community-geena jirto haddii warsanka xidho oo kala fogaada gacmaha dhaqda oo hay-adaha caafimaadka sida ay soo tebinayaan yeela wuxuu ku leeyahay magaraysa anigu ilaahay baan tala saaranayaayo ilaahay wuxuu ugu dhacan wax kale u dhici maayo war ilaahay wuxuu kugu dhacaa kugu qadaray wax kale kugu dhicmayaan waa la ogyahay laakiin sababtiina waa loo baahan yahayo ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuu ahaado ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuu raaco talooyinka iyo caafimaadka iyo waxa magaraysa naftiisa aan halaagaynin ilahay wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiina halaagina haddii lagu yidhaha sanka haddaadan xidhanin ooda gacmaha iska dhaqin ooda kala fogaansha dee hay-adaha caafimaadka waxay sheegayaan hadaada wixii dee magaranaysa ilaalin dhakhtarkii wuxuu ku dhahayo waad halaagsanmi haddii lagu dhaho ruuxa muslimka waxaa la rabaa ruuxa ugu horeeya inuu noqdo ilaaliyo wey dadka muslimiinta waa dadka ugu horreeya waxaa la rabaa inaan noqono dadka nidaamka ilaaliyo as a Somali community waxaa lainooga baahan yahay inaynu ilaalino nidaamka muslim baynu nahay muslimka aynu nahay ayaana faraya inaynu ilaalino nidaamka kala dambaynta iyo waxa lagu yidhaahdo inaad samayso wey for example waxaan kusoo koobayaa ustaad cabdi dhakhtarka haddii TB kugu dhacdo for example dhakhtarku wuxuu kusoo qorayaa kaniinka uu kusoo qoro haddaad qaadato bifadlillaahi waxaa laga yaabaa inaad ku fiicnaato dadka qaar baa laga yaaba inayna qaadanin kaniin kale ayaa haddana jira maalintan dhegaysanaya dhakhtar Soomaaliya oo ka sheekeynaya kaniinka labaad haddana haddii aad joojiso mid saddexaad baa jira kaa saddexaad marka waxa weeye adiga laguma dhiibayo ghayru mas'uul baa laga dhigayaa ruux baa subaxii ku imanaya kaniinku ku siinaya subax kasta ku imanaya ilaa aad ka caafimaado marka dadkeena muslimiinta ama dadkeena Soomaalida inaan ghayru mas'uulkaas kala noqono wax fiican ma aha islaamkuna arrintaas waxa uu ka digay ruuxu mas'uuliyad baa saaran xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kullukum mas'uulun wa mas'uulun wa kullukum macna ruux kasto idinkeedii kamid waa mas'uul ruux kastana waxa la weydiinaya wixii uu mas'uul kaga yahay waxaad mas'uul ka tahay kow waxa ugu horeeya naftaada adoo ilaahay tala saaranaya naftaada ayaad ka mas'uul tahay carruurtaada ka mas'uul tahay heerkaada ka mas'uul tahay community-gaada mas'uuliyad baa ka saaran adiga mas'uuliyadda ku saaran baa haddaad maganaysaa mas'araan samayso maganaysaa ruux walba uu dad badan baa ku dayanaya ana hadda maanta waxaan soo maray stable trip waxaan ka soo qaatay jidka dheer ee Soomaalidu inuu deganaa waxaan ka soo qaatay koob shaah inaan saaxiibanahay wixii sadina rama mar aan sheegay laakiin kulli halkan laga dhageysana laga yaaba Ustaad Cabdu wuxuu yiri koob shaah gadan waxaan ku warsanka baalka gashaan ku taas ugu haya wuxuu yiri anigu waxaan ahay dhalinyarada magaraysa localka cudurka waxaan ku dhalinyaro local bay yaqaaneen waa cudur cadaalad oo ruuxu ku dhacaba hore ka socodsiinayay sanka xidho marka waxa weeyaan walaalayaal inagoo ilaahay tala saaranayna haddana waxaa lainooga baahan yahay wixii caafimaadkeenna iyo nolosheenna iyo community-geenna iyo dalkan aan joogno iyo shuruucdiisa ah inaynu ilaalino intaynu awoodno wey fawdo lama ogola wey islaamku fawdo ma ogola islaamku waa nidaam dadka dhan ma garanaysaay u wada dhexeeya wey marka fawdo iska soco oo magaraysaa rabaan yeeli ma soconayso inta ayaa kusoo gabagayn lahaa Ustaad Cabdi shukran jazakallahu khayr جزاك الله شيخ فيصل aad baad u mahadsantahay runtii in la fahmana waa muhiim yani waajibaadka naga saaran diiniyan inayna nafteena halaagin inagoo haddana iyo wakiilashada ilaahay runtii waa arrin aan jeclahay inay intaa yara kooban ay dadku si fiican u fahmeen waa runtaa wakiilashada ilaahay oo keliya haddii caawnan aynu wadno malaha bila ka bixi mayno macnaheeda laakiin xigmadda ka dambaysa inaad si fiican ugu sheegtay waa muhiim runtii su-aashii labaad aan ku weydiin lahaa sheekh Faysal in baabad sii taabatay marka waxa weeyaan maadaama uu islaamku ina farayo oo islaamku nidaam yahay sidaad sheegtay uu ina farayo laynaga baahan yahay inayna nafteedii ayna nafaheennii halaagin oo inu ilaalino oo sidaad sheegtayna diintii iyo islaamkii aanu fawdo ogolayn marka la eego daryeelka caafimaadka oo nula jeedo badbaadinta nafteenna nafeenna iyo ta bulshadaba waa maxay waajibaadka inaga saaran arrimaha caafimaadka ka bilowtii shakhsiga tii qoyska tii bulshada maxay diintu ka tiri maxayna faraysaa maxaase nagu waajiba Faysal shukran Ustaad Cabdu horta waxaan rabaa marka hore dadka inaan su-aasha intaan u gelin waxaynan ku baraarujiyo arrin muhiima oo diinteena islaamka waxaa jirta waxa la yidhaahdo maqaasid shareeca manaa diinteena waxa weeyaan waxay u soo degtay inay ilaaliso 5 shay
marka shantaa shay waxaa ugu horeeya inay diinteena ilaaliso diinta lafteeda inay ilaaliso ruuxii diintiina ka khaldamin oo wax iska daamarmarin makaras inay ilaaliso waxaa ka mid a diinteena waxyaalaha loogu talagalay inay ilaaliso cirdiga ama nasabka ruuxa nasabkiisa la ilaaliyo la dhowro la ixtiraamo aabihii hooyadii qaraabadii makarasa wuxuu yahay la ixtiraamo waxaa ka mid a diinteena waxyaalaha usugtay inay ilaaliso loogu talagalay xoolaha oo dee xoolihii in makarasa la kala boobo la kala dhaco xoolaha la kala ganacsado la kala shaqaysto si makarasa weyga loogu talagalay ay ku socdaan waxaa kaloo diinteena loogu talagalay inay ilaaliso oo shayga ugu muhiimsana oo hadda su-aashaada aan rajeynay inay ku jirto diinteena waxaa loogu talagalay inaas nafta bani aadamka inay ilaalisaa loogu talagalay ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ilahi wuxuu leeyahy walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftaada meel hadduu halaag iyo dhib iyo rafaad ka jiro in aad magarada isku tuurta lama ogolo hadda maala cudurradan socda oo kale maanta jiro oo kale aad bay diin islaamka uga hadashay wey marka wixii haddaad aragto wax dhib iyo oo dee la sheegayo oo le waxa waa kan oo waa la caddaynayo hadduu yahay dee inaad halaagta naftaadu halkaa ku rida lama ogolo wey waxaa ka mid a maal hadda waxaa la yidhi waxaa la soo rogay waxa la yidhaahdo lockdownku ruux waa inuu hoggaansamo wey oo haddii la yidhi xilligaa lama bixi karo waa inaad xilligii ma garanaysaa dee wixii lagu u baxmeen wax kalena aad u bixin wey waxaa ka mid a caafimaadkaada wixii wax u dhimaya dad baxda caafimaadkaada bannaanka wax usoo dhimayo inaad ma garanaysaa dee aad baxda lama ogolo wey wixii caafimaadka wax u dhimaya marka diin islaamku waxyaalahay u sudegtay waxaaba ka mid a nafta bani aadamka muslim iyo gaal iyo xayawaan xataa xayawaanka nafta xayawaanka in diin islaamku way ilaalinaysaa wey naf oo dhan way ilaalinaysaa wey islaan reer banu israa'iila ayaa hadda kahor janno ku gashayba waxay aragtay magarasa ceel kor taagan ooman marka bahalla khufaynka bahallaha la yidhahdo sugsaanta kale laakiin harag laga sameeyey ayaa intii ceelka la gashay biyo uga soo qaaday ayay ku waraabisay eyga ay waraabisay daraaddii ayay islaantii janno ku gashay nabiga wuxuu yidhi fii kulli kabidin ratbun ajrun beer kasta oo qoyan ajri baa laga helayaa wey islaanta hata islaan xun bay ahayd laakiin eyga waraabinta ay waraabisay ayay ajri ka heshay wey marka waxaa laga wadaa waxa naftaada ruuxa naftiisa mas-uuliyad ayaa ka saaran nafta dadka la degan ama dariskiisa mas-uuliyad baa ka saaran nafta xayawaanka xataa ruuxa mas-uuliyad baa ka saaran wey marka haddaan usoo laabto su-aashaadii cudurradan hadda dhaca oo hadda jira oo ma garanaysaay way soo dhici jireen islaamku intuu joogay iyo ka hor way soo dhici jireen wey ayadoo teknolojiyadan iyo xadaaradan iyo waxyaalahan hadda jira ayna jirin ayay cudurradan soo dhici jireen wey marka aad baana looga digay oo ma garanaysaay in ma garanaysaay diin islaamku way ka digtay waxyaala macnaa waxa weye hadda waxayna haysta innaga muslimiinta waxa weye aqoon la-aan diinteena aan aqoonin wey laakiin haddaan diinteena si fiican xoogaa u baran lahayn ama calaqal xataa ruux xoogaa u dhexgeli lahaa wax badan buu fahmi lahaa wey marka cudurradan hadda taagan oo kale way soo dhici jireen iyadoo weliba saan sheegay teknolojiyadina waxaanay jirin islaamkana si fiican buu u daaweeye wey marka for example waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid hadda innaga dina ugu muhiimsan oo aan u baahannahay dadka inay wacyi taam helaan dadku dad badan baanan waxaan u haysanin wax khatar inuu yahay waxay iska haystaan wax iska caadi oo waa iska xanuun caadi oo samafar baa lahayo uu kugu dhiciyo maca salaam marka seriousness uu yahay maaragtay dadka qaar baan weli fahamsanayn marka waa muhiim wey marka islaamku waxyaalaha kugu booray waxa weye ruuxa in loo sheego la educate gare loo sheego wey waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid a ruuxa inuusan khilaafin dee ma garanaysaay dadka oo khibradda u leh waxaa la yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun adduunka dadka jooga ruux walba wuxuu leeyahay wax khibrad gooni iyo wax gooni ayuu leeyahay wey marka dadka khibradda u leh hadda maala nin baa sheekha nin baa injineera nin baa macallina waxaa laga yaabaa ninka macallinka hadda injineer inuusan guryo dhisi karin ninka injineerka ana waxaa laga yaabaa inuusan dadka daaweyn karin laakiin ninka dadka daaweeye ee waxaan garanaya waxay soo dhaxaan dadku inay raacaan wey hadduu hadda maala waxbaan ku sheegay nin injineer hadduu guri kuu dhisayo injineerka guriga kuu dhisay wuxuu ku dhahaa waa inaad raacdo wey badankeed su-aalaha macnaa waad didi kartaa qayb laakiin hadaad tiraahdo war waxaad waxba kama jirto guriga kuu malmaloqo guriga kugu dumi wey
dhakhtarka hadduu ku yidhaahdo dhakhaatiirta idan sidaa hala yeelo oo sidii la raaci waayo dee wixii ka dhici kara ruux walba uu garanayaa marka مثل النبي صلى الله عليه وسلم وحاوي من الله ريب بني ثقيف نم وحاكو جري قبل جودان نبي قال لما بايعودان markay la mubaayacooday ninkii juudaanka qabay suubanaha sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna qad bay'anaka farji ninkii keligii buu heerkiisa u diray wuxuu yiri adigu aad xanuunsan tahay baalkan lagu faafin oro meeshaada aad marka hadduu meel ku dhaco islaamku waxyaalaha wacyigelinta waxa kamid ah meel hadduu ku dhaco hadda corona halkan lagu dhacay inaad cararta lama ogolato corona meesha ka dhacayo meel baan aadayaan koos walaal yaa mid kale meel iska joogto inaad aafaysaba inaad soo gashan lama ogolo oo tiraado war waxba igama gelin ilaahay baan tala saaranaya waan iska aadayaa iska daa inaad dhahdo lama ogolo marka ruuxa muslimka waxaa la rabaa inuu ruux yahay is xisaabinaya oo asaga naftiisa xisaabinaya waxaa la yidhi xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu war is xisaabiya intaan laydin xisaabinin ka hor ana waxa way qiyaamaha ina tigin wey laakiin adduunyada markaa joogto ma inaad is xisaabiso dhahdo waniyo maanta maxaan sameeyey haddii ka waran adiga oo dad waxaa jira inaga fara badan oo soomaalida oo sidii la sheegayo ayagoo xanuunkii qaba ama laga helay ama saynkiilo wuxuu ku leeyahay waan iska baxayaay meelahaasaan shoo cabayaay jamaaca meeshaan turb la soo ciyaarayaay salaadii ilaahay waaban xanuunsanahay niyo masaajidka ilaahay baan u dhowaanayaay war billaahi calaykum dadka masaajidka jooga waa dad masaakiina dadkaa ma garanaysaa ha qarribin shoobka marka aad soo shoobin garaysa dadka shoobka jooga ka shaqaynaya shaqaalaha iyo dadka jooga ha halaagin marka waxa weeyaan haddii cudur lagaa helo ama aad symptom dareemayso raac waxa lagu yidhaahdo awaamirta lagu siiyo ee magaranaysa dowladda caafimaadka ku siiyaan raac ummadda muslimka iyo ummadda dhanba ha halaagin meel fadhiisow marka ruuxa muslimka waxaa la rabaa inuu yahay ruux muxaasibu naftiisa inuu isu xisaabiyo ayaa la rabaa communitygiisana uu ka naxo isagana uu iska naxo wey marka intaas cabdi kusoo goyn lahaa shukran jazaaka allah khayr aad baad umahadsan tahay sheekh faysal runtii su-aasheeda saddexaad ee soo socotay waxay ahayd inaad bal tusaale naga siiso ama aad noo sharaxdo diintu waxa ay ka tidhi xakamaynta cudurrada faafa waana taabatay weliba markaa waxaan ku odhan lahaa adigan iminka sheegay dadkeenu iyo iska dhaqaaqaya dukaamadii tegay talaafalaya maanta warka waxaa ku jiray Australia ayaa waxaa laga helay kiis covid ah oo la xidhiidha weliba kan cusub ee iminka farcanka ah ee UK aad inoo saameeyey 3 maalmood ayay waddanka gebigiisaba xidheen marka waxa weeye qofkii waynu ognahay wuu istalaalaa marka waa la sii eegaa haddana kani wuxuu ku xun yahay iminka waxa weeye laga yaaba waxay yidhahdeen 3 qof ee covid qababa qof ka midii calaamadihii kama muuqdaan haddana wuu faafinaya marka saad sheegtay waxa laga yaabaa in anigu diyaarad raaco oo aan East Africa dhowr wadan maro bariga Africa and then aan halkaa dad badan kula kulmo anigoo aan markii la isoo tijaabiyey aan waxba qabin haddana faafinaya bahalkii marka taasina khatarteeda leedahay dadkeena sida aad sheegtay waa runtaa in mataqaanaa la fahmo oo la baraarugsanaado aan la khilaafin khubarada taladooda wacyigelin dhibaatooyinkii naga haysatay habeen dhaweyd xaashi cilmi oo ka shaqeeya GP-ga qolooyinkan GP-yada la shaqeeya kamid ah qolooyinkiina GP-yada aan aqoonin ama wadankii nagala xiriir meelo kale ka daawanaya GP waa general practitioner macnihiisuna waa dhakhtarka qoyska waa halka ugu horeysa in ragga badankoodu aanay teginba haddii ay leeyihiin qaarkoodna aanay lahaynba marka runtii habeen dambe waxaa inoo iman doonaa oon idinku wacyigelinayaa inagala qayb qaadan doonta gabadh kalkaalisa neersa oo hablaheena ka mid ah oo ka warrami doonta saamaynta uu nagu leeyahay iyo dhakhtarrada waxaa ka dhex socda iyo waxyaalaha aynaan ogeyn marka sheekh faysalow waxaan doonayaa maadaama aynaan khubarada khilaafnaba mataqaanaa oo aynu iska dhaadhicino waxyaalo kale runtiina waxa inoogu daran waxa weeye xitaa dhakhtarka waxaynu dhahnaa warkani dawo nama siinayo markaynu u tagno maba aaminsanin marka iyadoo saasi tahay bal diintii dadkeennu runtii marka la eego waxaa laga yaabaa xitaa ka aan ay qabyo ay cibaadadiisu tahay maalinta uu xanuunsado 1,000 jeer buu ilaahay baryaa hadduu madaxu yara xanuuno ilaahu oo tasbiixdu badiya marka cudurradan faafa sida aad sheegtay inay diintu tiri warta hal taraaflin oo dadkii la joojiyo
sidee baynu bulshadeenna ka bilow Bristol iyo dhammaan Soomaalida kale oo dhan waa ina la mid sidee baynu uga qayb qaadan karnaa bal inagoo dhinacii diinta raacayna iskuna dayayna inaynaan khubarada khilaafin saad sheegtay marka bal arrintaa waad carabbaabtay carabkaad ku dhuftay mar dhaweyd maxaad ka odhan lahayd sheekh Faysal shukran jazaak allah khayr ustaad cabdi horta waxaa arrin aad loola yaabo ah oo aad looga naxa ah oo ay ku tusinaysaa communitygeenna wacyiga si inuu yahay wacyigeenna yaraantiisa saad sheegtay inagoo ka ah communityga magaalada Bristol boqolkiiba 2 ka ah haddana xanuunkan iyo ma garanaysaa dhimashada iyo inaan boqolkiiba 8 ka nahay waa number horta aad u sarreeya oo laga naxaw number aad iyo aad u sarreeya laga naxaw numberkaana wuxuu ku tusinayaa saanaan ma garanaysaa u ahayn saanaan indhaheenna u furayn oo indhaheenna unu u soo jeedin dad badanna way naga dhinteen hadda magaaladeena Bristol oo saad sheegtayba hadda anuusan ogahay hal masaajidkan tawfiiq oo kale allah u naxariistee ma garanaysaa mu'adinkii maalinkii la furay ilaa intuusan March sanadkii hore 5 salaadoodba furi jiray nus saac ka hor iman jiray 5 salaadood hal salaad inuu fasax ku maqan aan ka maqnaan jiray allah u naxariistee xaaji Ismaaciil akhuna Umar akhuna Cabdi Cilmi maanta la soo aasay iyo dad badan oo kale ma garanaysaa aanan ma garanaysaa aanan halka lagu soo koobi karin allah u naxariisto marka horta arrintaas dadka Soomaalida inay si fiican u fahmaan waa arrin aad iyo aad inagoo boqolkiiba 2 ka communityga degan magaalada Bristol dadka degan inaynu dhimashada ama xanuunka aynu ka ahano boqolkiiba 8 aynu ka ahano waa arrin aad iyo aad dadka Soomaalida inay fahmaan u baahan waxa la yiraahdaa red line ana waxa weeye nal casaan weey marka dadku inay nalka casaan ka arkaan saan sheegayba dadkeena Soomaalida ama muslimiinta waxaynu u baahannahay waxa ugu horeysan marka hore sheegay horta wacyigelinta ugu muhiimsan dadka in loo sheego oo cudurkan iyo xanuunka uu leeyahay iyo in loo sheego sidaan sheegayna islaamku wax walba isaga ayaa ka horeeya wey hadda for example khamrada maxaa loo mamnuuc islaamku khamrada lama cabo lama ogola sooma khamrada maxaa loo mamnuuc khamrada waxaa loo mamnuucay caqligu waa hibe ilaahay ruuxa uu siiyey wey marka hibada ruuxa ilaahay uu siiyey ruux markuu khamrada cabo sidii xoolaha kale noqonayaa ruuxii baawur baa dardari kara meel buu isaga dhici waa la ark ruux lagu arkay wey marka waxa weyn caqliga wuxuu dhimaya lama ogola wey laakiin caqliga wixii siyaadinaya waa la ogol yahay wey hadda fiir for example ilaahay markuu quraanka soo dejiyay aayadda u horeysay ee ku soo degtay dhulkan waxay suuratu iqra bismi rabbika alladhi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أنا وحويان إلهي وحوب براي بني آدم كسيو حلو قرأ قلنك إلهي بني آدم وحوب براي وحوس أقوني قالت ما أنت واحد ديارها يعاف ماك يوحى لك عنا يوحى الصعود يدوارت مركا وآيات دي أول رئيسي إسودك توحي كادلسي وحبرشدة يا عقلك سيدي مقارنة هورا لو قادلة marka islaamku waxa weeyaan diinta islaamku dadku hadii wasan sheega hadii xataa wax uga akhrisan lahaayeen ama wax baran lahaayeen diinteena waa diin xaniifa waa diinta si fiican ma garanaysaa wala hadasha bani aadamka ka fikirta caafimaadkiisa ka fikirta magarsa dhan kasta oo nolosha bani aadamka magarsa jawaanib bani aadamka noloshiisa dhan ka fikirta weey ana waxa weey meel hadda deganta daris baa leedahay dariskaaga wuxuu yiri xadiidkii nabiga wuxuu yiri jibriil baa ila dardaarmay igala dardaarmay dariska ilaa aan u maleeyo dariska inuu ma garanaysaa uu dhaxli doonaba waa dhan kasta dariskii ma garanaysaa diin islaamku maxay ka hadashay caafimaadka ruuxa caafimaadkiisa heerkiisa carruurtiisa community oo la degan yahay diinta waxay saartay ahmiyad weyn ee diintiisa weyn diin islaamka lama ogola wixii caafimaadkaada wax u dhimaya sidaan sheegay khamradaas kale caqligaada ama caafimaadkaada wax u dhimaya inaad ku kacdo lama ogola weyn dilida magaraysa lama bixi karo shaa lama samayn karo saa lama yeeli karo haddii la yidhi oo dadkii magaraysa garanayay ay yidhaahdeen waa in la raaco in la diido maaha wey diin islaamka waxa weeyaan dadka kale inaad dhibta lama ogola wey saan sheegaya dad fara badan oo laga yaabo inay symptom hayaan ama laga yaabo inay xanuunsan yihiinba ama laga yaabo magaraysa lama ogola diin islaamka inaad arrintaa la timaado
inaad gurigaada joogta oo gurigaada ma garanaysa aad fadhida wey marka mukhaalafatu ma garanaysaa inaad khilaafto waxyaalaha caafimaadka sababta maxaa yeelay wixii haddaad khilaafto dhibkii ku soo laabanaya adugu ku soo laabanaya heerkaadu ku soo laabanaya carruurtaadu ku soo laabanaya hadda mithaal baan matal kuu sheegay mithaal simple oo dadku fahmi karaan maalinta waxaan akhrinayay fire brigade-ka ciidamadan dabdamiska oo 5-4 ayaa soo baxay dacwid ay soo mareen qof dumara ayaa baawurkii ku goysay baawurta maarta speed xawaare ku socdaa qof dumara ayaa wadadii ka xidhay qof dumara ayaa wadadii baawurta ka xidhay baawurtan way cararayaan 3-4 daqiiqo ku tagaan baraan dab hadduu kaco dawaanay horay ka cararaan waa loo banneeyaa waa loo sheexeeyaa saasa loo sameeyaa qof dumarkaa bay u sutayeen qoftii intay la hadlayeen tan bay qaadanay islaanta way ignore garaysa waa la wadi aduu markii dambe way ka qaatay way ka dhaqaaqday meesha u socdeen bay tageen oo dadku isku damay gabadhii ma garanaysaa iyadana baawurka way soo dharaafaysa gurigay timid waa heerkeedii iyo carruurteedii wixii weeyaba marka khasaare yaa qabada iyada khasaare ku dhacay marka haddaad ma garanaysaa adiga oo wax si kaa yihiin aad ma garanaysaa dadkii ama u qariso dad badan baa dadka qariya oo waxay dhahayaan ma garanaysaa waxay u maalan ceeb xanuunku ruux hadduu ku dhaco ceeb maaha innaga Soomaaliya waxa la dhihi jiray hebel uu fadhiisan yahay qaaxa haysa TB baa haysa uu qarsan jiray wuu dhiman jiray waartan TB hada cudurrada ugu salan hal xabo kaniin baa la qaataa marka waxa weeyaan wax ku haya haddaad qarsato dee adigana wuu ku qarsanayaa mujtamacina wuu qarsanayaa diin islaamkana ma ogola ma garanaysaa dee inaad dadka ummadda halaagto wey haddii ma garanaysaa xanuun ku hayo walaalayaal dhakhtar tag la hadal waxaa la yaabaa in daawada iska dhib yar tahay oo guriga joog lagu yidhahdo wax weyn ku hayninba hadda ruux baa waxaa ka taga matal waxa la yidhaahdo example calaamadaha corona lagu garto waxaa ka mid ah la yidhi inuu ka tago ruuxa dhadhanka ama ma garanaysa urta dee waxaa la yaabaa wax weynba ku hayninna guriga iska joogo iris baaro ma garanaysa dana ummadda kale ha sii halaagi marka diin islaamku ma ogola hadduu adiga wax ku hayaan ama xusi kaayin dad kale inaad sii halaagta lama ogola wey walaa tulquu biyaydiikum ila tahluka war naftiina ma garanaysa halaaga ku ridina dadka ku dariska ah iyo dadka aad la degan tahayna ha halaagina wey marka laakiin waxa ugu muhiimsan oo arka Ustaad Cabdi oo community-na ka maqan waa wacyiga waxa kaloo ka maqan dad badan ayaa ma garanaysaa marka wax loo sheego wixii jikaaraya ama diidaya garanaysaa laakiin haddii wixii lagu sheego inaad jikaarto maaha inaad diiddo maaha waa inaad raacdo wey sayidina Cumar ibn Khattab radiyallahu anhu yaa maalmaha ka mid ah masaajidka ka hadlay meel buu ka hadlay wuxuu ka hadlay meherka dumarka xabaar markuu waday gabadh baa istaagtay waxay ku tiri war Cumar oo niyo meherka shaqo kuma liida fadhiiso waa ninkii madaxda ahaa waddanka xukumay dee Cumar ma garanaysaa waxay ku tiri waxaan shaqaada mehe iska daa Cumar wuxuu yiri waayay buu ka baxay wasuu gartay maxaa la yiraahdaa ruuxa wuxuu ku jiraa oo uu ku jiraa baa laasamo ruuxa luuq meel buu galay ku gartay oo inuu galo muxuu sameeyay wuu ka baxay wuxuu yidhi haa khayr allah walaal khayr allah ku siiyo was meherka dumarka iskale ayaga ama afiyaan ama hadayaan ama ayaga iskale markii dambana ma sha Allah waa kii mas'ala fatwado yiri waagi hore marka dumarka la furo hadii la 3 dalaaqood baan ku furay hal dalaaq way ahaan jirtay haddana 3 kale hal dalaaq haddana 3 kale hal dalaaq markaas waxay noqon jirtay gabdhihii lagu ciyaarade marka dambe wuxuu yiri ninkii xaaskiisa ku dhaha 3 dalaaqood baan ku furay way ka furantu yiri raacagta furu dhaqaajiyo sheegadiina waxba kama jirtay marka waxa weeyaan walaalayaal dadkeena xaaladdu way xun tahay xaaladdu waa serious Allah ina caafiyo Allah ina badbaadiyo dadkii gaarita Allah una xariiso laakiin waxa loo baahan inteena hadda nool inaynu fahamno war haddii loo sanka xidho gacmaha dhaqo ma garanaysaa kala fogaada haddaan gurigii markaan tago maalmo gacmaha dhaq kolba ka soo bax haddana dhaq waxa laga yaabaa qashin meel ku surta gacmaha dhaq baawurka ku soo gacmaha dhaq waxba ka dhamayso nadaafadu islaamku maxaa la yiri nadaafadu waxa weeyaan waa islaamka niskii way marka waxa weeyaan in nadaafadii iyo lagu dadaal caafimaadkii diinta islaamku wayna amraysaa bal ee ma garanaysaa waxa ugu horeeya ee ma garanaysaa diin islaamku ay ku dadaasho waa nadaafada iyo caafimaadka iyo ruuxa ma garanaysaa wixii wax u dhameeyay in laga ilaaliyo kadibna mujtamacii ma garanaysaa dee ula noolaa xaaskiisa carruurtiisa iyo haddii kale dee community ula noolaa inuu ma garanaysaa ruuxa ka fikra way waxaa jira ma garanaysaa aan lagu ciyaarin baa jira waxaa jira aan lagu kaftamin waxaa jira aan lagu safaadin caafimaadka dadka laguma safaado wey maxaa yeelay naftan ilaahay baa ku siiyey ilaahay markuu ku siiyey mas-uuliyad buu kaaga dhigay mas-uuliyaddu kaaga dhigay waxaa weeye
in wixii dib u keeno dhaad ka ilaalisa wey inaad tiraahdo ilaahay baa ma garanaysaa yaan tala saarto motorwaygaasaan iska qaadayaa oo London baan u lugeynaya marka bawr baa kala laba laga kala dhigaya uma ogolo wey marka kulay intaas ku soo gabagayn lahaa waa maasdaas Cabdi Shukran jazakallahu khair Sheikh Faisal aad iyo aad wad mahadsan tahay waa run saasigtay wacyigelintu waa muhiim insha Allah comments kan halka ka arkayna xigma waxay soo jeesay in dhalinyarada bal af Soomaaligooda aanu adkeyn ama luqadda Ingiriiska xoog ugu hadla iyagana loo sameeyo wacyigelin insha Allah waanu ku dadaali doonaa xigma waan isku dayi doonaa intiina kale dhiirigelintiina iyo mahadcelinta aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin baa anigoon midmid in magacaabeyn wacyigelintu waa muhiim waana waajib ina saaran waana waajib qof walba saaran runtii Sheikh Faisal sababtaan ugu yeedhay maanta waxa weeye marka runta laga aynu ka hadalno anoo gudanayay waajib saaran haddana qofkii xaggii diinta inooga aqoon badan inaanu yeedho inaad ugu Sheikh Faisal dadkii waajibaadkii balkaale aynu ka baxno oo dadkii hala wacyigeliyo runtii saas Sheikh Faisal inoo sheegay ilaahay khayr ha siiyo in aynaan khubarada khilaafin awaamirta aynu soo doofulno nidaamka aynu ilaalino diintii bayna furaysa maaha imika haddii layna qabto maxkamad layna geeyo waynu gariirnaa yaa maxkamad baa la ii soo diray hebelow ka soo kacay baynu dhahnaa oo waynu soo urursanaa laakiin marka hore inaynu nidaamka ilaalino waa muhiim waxyaalaha caqliga iyo caafimaadka xudhimayana in laga fogaado runtii waa waajib ina saaran waana mid diinta ina farayso sidaa uu sheekh inoo sheegay waxyaalaha ugu horeysa nadaafadda caafimaadka 5 waynu maalin walba waynu isnadiifinaa 5 waqti baynu weysanaa waana tii xadiisku ahaa qof mataqaana waa sidii webi ku maydhanayo kale yani markuu qofku 5 mar aad weysasto maalintii runtii haddaba inagoo haysana waxaasoo dhan hubkaasoo dhan ayaa haddana waxa ina wacyigeliya oo yidhahda warnadiifiya runtii marka la eego waddankan aynu joogno markaad musqulahooda gasho maxaa ku qoran gacmaha mayd markaad ka soo baxayso laakiin markaad fadhiisato haddana adigu caagad biyo asidan dee caagad biyihii kuma yaalaanba meeshii runta marka laga hadlo marka muhiimadda nadaafaddu taasay leedahay marka waxaan dhammaanteen ba idinku dhiirigelinayaa in aynu runtii ilaahay nuga anfaca sheekha wacyigiisa dhegeysano bahalkan cidna ma dhaafayo sidaa uu sheekh Faisal inoo sheegay ilaahay ha u naxariisto intii inaga dhimatay ilaahay ha caafiyo inta xanuunsanaysa sidoo kale ilaahay inteena kalena haynoo siyaadiyo caafimaadka oo hayna badbaadiyo sidaa maanta ilaahay ha u naxariisto waxaanu soo aasnay galabta Cabdi Cilmi Bulaale oo jimcihii magaalada Bristol ku dhintay sababtaan u sheegay Sheikh Faisal waxa uu inoo sheegay Xaaji Ismaaciil oo imaamkii masaajidka oo 5 qof masaajidka furayay in uu allaha ilaahay naxariistana ka waraabiyay isaguna bahal ka raaftay yani qofkii sidaa isku ilaalinayay maadaama inkastoo uu Sheikh Ismaaciil qofina haddana waxa weeyaan waa muhiim runtii inaynu islaalno marka Sheikh Faisal runtii waxaan dadkeena malaha diintiina waynu ku wada waxaan ka baqayaa sidan haddii aynaan ilaahay horta ku anfaco aynu ku joogsan haddii kale maalin dhow waxaa dhici doonta inagu bahashan qabyaaladaynu habaar ku qabnaay in la yidhaahdo reer hebelna intaasaa ka dhimatay reer hebelna intaasaa ka dhimatay oo nu dawaqnaba oo haddaynaan imkaa ka qaban ugu dambayntii Sheikh Faisal kelmadda ugu dambaysa aan doonay inaad ku soo gunaanado maxaa talaa ee aad ragga iyo dumarkaba siinaysan raggeennii si aad sheegtay dibaddii bay wada taagan yihiin waynu canaananay oo mar walba adiga maanta soo arkay la soo hadlay guryihii baa dibadda iyadoo la taagan gurigii lagu noqonayaa waxaa laga yaabaa inaanu xitaa dhalinyaradii baa dibadda taagan iyagoo aan farxalanba ay gurigii galaan taataabtaan ama mataqaanaa halkaa ku faafiyaan dumarkii baa iyagana laga cabanaya oo la leeyahay markay tacsi dhacdo guri bay 50 qof ku galayaan waxaa laga yaabaa inay qaarkood meher tagaan oo iskaba xafladayaan habeenkan waxaa laga yaabaa sida la sheegay inay isku wareegaan oo xagbaddan ay kala qaadayaan ay bahashiiba raacdo ama wax kala iibsanayaan marka kelmadda ugu dambaysa aad ku soo ururin lahayd aad kaga tagi lahayd caawa Sheikh Faisal waa maxay bismillah ustaad Cabdi aad waa mahadsan jazakallahu khayr fursadan aad nasiisay kelmadda ugu dambaysa horta waxaan dhihi aniga marka koowaad waddankan aan degannahay caafimaadka hay'adaha caafimaadka awaamirta inoo soo dirayaan aan si fiican u raacno waxaan kaloo dhihi lahaa
especially ragga walaal gurigaada markaad ka soo baxayso ha ka soo bixin ilaa wixii dee oo lagu amramayno macnaa wax kale dad shaqo u socota iyo dad wax soo gadanaysa iyo laakiin dadka in meelaha la istaago oo dariiqa waddooyinka la istaago oo laga xirxidho taa walaalayaal iska ilaalino waa arrin ma garanaysaa dhib leh waxaan kaloo dhihi lahaa dumarka ustaad cabdi sida uu sheegay iyagana isu tegtegaya walaalayaal waxaa laga yaabaa adoo fiican oo caafimaad qaba intaad tagto ood u tagto dumar kale inaad xanuun soo qaadid xanuunkii aad ninkaada oo ama carruurtaada oo laga yaaba inay magaranaysa dadkan dee yihiin underly health condition dadka caafimaadkooda magaranaysa wax intaad u keento ruux xeerkaada oo sida kaaga baxaa laga yaaba ama ruux xeerkaada qaraabo la sitoo kale uu saa kaaga baxo oo mar qaarkood sida magaranaysa dadka soomaalida ay sheegaan waxaan kusoo gabagayn lahaa walaalaya ilaahay ka cabsano allah subxaana watacaala aan barino isaga ayaa magaranaysa naga dulqaadi kara waa cadaab iyo ciqaabna la dul saaray marka cadaabta iyo ciqaabkana la dul saaray aan ilaahay u toobad keenno aan asaga ka cabsano ma garanaysaa dadkii naga dhintayna aan u ducayno dadka xanuunsanna iyagana ma garanaysaa aan u ducayno iyagana ilaahay inuu caafimaad siiyo intayna noolna aynu is ilaalino oo waxaa la yihi caano daata oo dabada la qabtaa war intayna nool bal aynu is ilaalino oo ma garanaysaa in ilaahay ma garanaysaa na badbaadiyo innagana intayna nool aynu isdaba qaban oo ma garanaysaa waa ka ustaad cabdi cumar iyo dad badan baa is abaabulay habeen laga yaaba markay muddo joogaan ba dadka saan isu abaabulaan marka talooyinkan ruuxay soo gaadhow inuu dhegaysto oo uu raaco ma garanaysaa inuu talooyinkan raaco shukran jazaakum allahu khayr allahna badbaadiyo allah ma garanaysaa u naxariis dadkii naga dhintay inta naga xanuunsan allah caafiyo innagana waxaynu isku ognahay ballanteena tahay nafteenna iyo nafta carruuraheenna iyo heeraheenna iyo qaraabadeenna iyo saaxiibadeen iyo dadka asla shaqayno aan badbaadino innagana waynu is badbaadino washukran jazaakum allah khayr jazaaka allah sheekh faysal ilaahay ducadaha naga aqbalo aamiin ilaahay ha naga dhigo kuwii waanada iyo talada anfacdo ilaahayna ha naga dhigo kuwii cilmiga aad caawa runtii noo sheegtay kuwii ku tusaale qaata ee ku dhaqma ee anfaco dhammaantiin inta kalena la daawanaysana aad baa mahadsantihiin dadka commentka ka samaynaya dhammaantiin ba aad baa mahadsantihiin waxaan jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo runtii talooyinkiina noonu qaadanaynaa faysal cabdiraxmaan wuxuu yidhi gurigaaga ha ku deeqo waxaan u malaynayaa waa halku dhig wanaagsan ilaahay ha inaga dhigo kuwii guryaheennanu deeqaan aynu is ilaalino qoyska ilaalino nafteena ilaalino qoyska ilaalino bulshadana ayna ka qayb qaadano runtii waxay ahaan lahayd maanta raggii dadkii lagu dayan lahaa loo lahaa dadka muslimiintiisa saasay u dhaqmaan waxaa jirta faysalow gabadh la yidhaahdo maryama jamiila gabadhaasi yahuudiyad bay ahaan jirtay maraykanku nooleed waagii dambe bakistan bay wareegto way dhimatay qoraa weyn bay ahayd marka waxay ka hadlaysay caafimaadka bulshada buug ay qortay ayaan waa ka akhriyay yacni waxay tidhi waxyaalaha ugu cajiibsan arkay bay tiri waxaan maray bay tiri dhulkii islaamka diintu waxay tiri muslimku islaamku nadaafadda say uga hadashay iyo caafimaadka bulshada public halka ay ka taagan tahay iyabay tiri waxaad arkaysaa bay tiri maanajaradii bangiyada macallimiintii og gidaaradii ku kaatay waxaad arkaysaa bay tiri xashiishkii oo meel walba yaalla marka waxay tiri taasi diintii wixii ayna faraysay ay kasoo horjeeda marka maanta waxaynu ahaan lahayn dadkii ummaddan hagi lahaa ee odhan lahaa war diinta iyadoo nadaafad bay wadaa nadaafaddaasi ka shaqaysaa ilaahay ha inaga dhigo kuwii waanada iyo casharka ha ku qaataan waxaan kusoo gebagabaynayaa habeen dambe runtii waxa igala qayb qaadan doonta iyaduna inan kalkaalisa caafimaada oo bristol ka howlgasha iyaduna ka hadli doonta dhinacii helayaasha caafimaadka waxa uu yahay cudurkani caafimaad ahaan saamaynta uu ku leeyahay sida uu dadkeenna u saameeyey waxa laga qabanayo tallaalka intaasoo dhan waxaan kusoo gebagabeynayaa mar kale aad baan kuuga mahad celinayaa sheekh faysal aad baad u mahadsan tahay dhammaantiinna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.